su-aasha ay weydiisay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. dabcan hirshabeelle waxaa la dhisay markii maamul goboleedyada la sameynayay ama la dhisayay dowladdii ka horreysay xasan sheekh 2016kii. sida lagu dhisana Soomaaliya dhan waa ogtahay. boobsiis iyo waxaa lagu dhisay iyadoo reer hiiraan markaas aynaan raalli ka ahayn. waxaa dhacday tii labaad in ayadana lagu dhisay si boobsiisa ama rag ay rabaan inay shaatiye isla eg ay ka tashaan si ay biri doorashada dowladda dhexe ama federaalka ay u xakameeyaan ama ay u qabtaan. marka waxaa dhacday in reer hiiraan khaasatan beesha xawaadle horena ay u diidanayaan welina ay hadda diidan yihiin qaabkii lagu dhisay ama lagu soo xulay baarlamaanka. dabcan waxaa jira tabashooyin fara badan oo horena loo sheegay wasiirka arrimaha gudaha hirshabeellena hore oo uu sheegay in cadaalad darro lagu dhisay. waxaa tabanayaan reer hiiraan khaasatan beesha xawaadle in xildhibaanadii beesha xawaadle iyo beesha abgaal la cadaalad dareeyay ama la marin habaabiyey si boobsiisana loo dhisay ama aysan raalli ka ahayn. tii oo jirto ayaa haddana waxaa dhacday weli in ay reer hiiraan ay ka tabanayaan imaatanka madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle inuu beledweyne tago iyadoon weli aan la xallin tabashooyinka ay tabanayeen. aad baad umahadsan tahay. xiisada magaaladii ka aloolsan ciidamo markaasi arrintaas ka gadowsan ayaa qaybo ka mid ah magaalada la wareegay. marka arrintaasi maxay horta salka ku haysaa iyada laftirkeeda? arrintaas waxay salka ku haysaa dabcan bishii lasoo dhaafay dabeeqadeedii waxaa yimiday gobolka banaadir madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed intuu shirar badan oo ku galay reer hirshabeelle oo la galay khaasatan beesha xawaadla haddana oo la galay 3 ilaa 4 shir. waxay israaceen siyaasiyiin xawaadla si ay u xalliyaan dhibaatooyinka ay tabanayaan reer hirshabeelle gobolka hiiraan khaasatan beesha xawaadla. wafdigaas waxaa ka mid ahaa xildhibaano federaalka cabdisaaq maxamed cumar iyo cabdisaaq dheere iyo cali cabdullaahi iyo ninka la yidhaahdo assemblish. xagga markii laysugu tegey xal raadisay galeen iyo in la yidhaahdo odayaasha ay la fadhiistaan golahii kacdoonka jenaraal xuud oo hogaaminaya ay la fadhiistaan ugaaska ay la fadhiistaan meel walba ay yidhaahdaan hirshabeelle xaqa nooga maqanna waa ka qaadaynaa waana la xisaabtamaynaa cali guudlawana beledweyne saasaan ku keenaynaa. iyadoo wada hadalkii iyo ay socdaan iyo isku jiijiidkii intaysan wafdigaas tegin waxaa tegay oo ka hormaray oo maqlay in wafdigaas ay tegi rabaan xildhibaan cabdullaahi godax barre oo ka soo horjeeda hirshabeelle. dabcan bataatanba aan rabin ama maqli karin gurtime iyo dhagxaan iyo qodxay iyo waxa u dhigdhigay iyo meelo aysan mari karin. tii iyadoo ay jirto nimankan dadaal badan ay wadaan ayaa 3 habeen ka hor waxaa tegay niman xildhibaano iyo wasiirka arrimaha gudaha oo ayagana aan tiimkaas ahayn oo ka soo horjeeda oo nimankii dhisay hirshabeelle marka horeeto boobsiiskan ku dhisay iyo cadaalad darrada ku dhisay oo laga cabanayo ayaa meesha tegey. dabcan arrinta xalay dhacday inay ayaga ka dambeeyey sida ay uga dhacday dalka Soomaaliya oo la socotiin dowladdan 4 sano hadda waqtigeeda oo dhamaaday. baydhabo wixii ka dhacay waa la ogyahay. dhuusamareeb wixii ka dhacay waa la ogyahay. qabaa'ilkii Soomaaliyeed inay laba iskugu direen waa la ogyahay. cid moog ma jirto. hirshabeelle labada qabiilo ugu waaweyneed oo u kala sheekeeyeen waa la isku diray. tan hadda waxay sii maraysaa in qabiilkii xawaale dhexdiisa la kala jabiyo oo la isku adeegsado. aad baad umahadsan tahay. annagu guud ahaanba si markaasi xaaladda guud ee hirshabeelle ka wada warami doono. dhanka kale wafdigan tagay ayagu la sheegay inay xal meeshaas u tageen iyo wafdigan kale ayagana ka daba yimid. arrintaasi laftirkeeda cirka waxaa sii geliyay malis oran karaa siyaasiyiinta reer hiiraan ee ayagu markaasi tabashada qaarkood reer hiiraan la qaba iyo kuwa markaasi hirshabeelle ogolba ama xal meeshaas u tagaan. ayaga laftirkooda mararka qaar inay kala hadlaan ayaa arrinta cirka u sii gelinaysa malis oran karaa. waa la oran karaa wayna tahayba ma la oran karay. sababtoo ah waxaa jira wasiirkii hore arrimaha gudaha ahna xildhibaan hore cabdullaahi godax barre wafdigaas tegayna waa ka horreeyey. maalintuu soo baxayna dagaal oo iclaamiyey. xalay iyo habeen horena Soomaali way arkaysa baraha bulshada wuxuu ka dhigay
ninkaas ushiisa meel bay ka jaran tahay waxaana u ka shaqeynaa reer hiiraan iska dhaafee xawaadlo dhexdiisa beelo ka mida dhexdood inay islaayaan oo ka shaqeynaa sababtoo ah haddii ay ku jiro xawaadlinimo haddii ku weyn tahay oo ka damqanaya dhibaatada haysato xaqa ka maqanna oo raadinaa dhabna ay ka tahay shalay wuxuu ahaa wasiirkii 3 sano wasiir ahaa ka hor wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waad arkayseen koonfur galbeed inuu ku dhumiyey asaga qoray odayaashii koonfur galbeed soo xulayay markuu wasiirka arrimaha gudaha ahay jubbaland sidoo kale xuquuqdooda wuu doodsiiyey xawaadle waxa kale oo doodsiiyey inta wasiirka hadda ahaa madaxweynihii hore ee hirshabelle maxamed cabdiwaare waa ka eed sheeganaya dhahaya asagoo dowladda wasiirka ahaa wasiirada ugu awoodda badan mashaariicdii maamul goboleedka hirshabelle asagoo ka hadli karo uusan ka hadlin reer hiiraannimada oo sheeganaya hadda oo uga damqanayo shalayna oo uga hadli waayo maantana oo uga qaylinayo waxaa is leeyahay timir laf baa ku jirto cabdullaahi goodax barre ushiisa meelay ka jaran tahay waana la ogyahay waana la yaqaanaa waxa ka shaqeynayo in xawaadle islaayo rabaa in reer hiiraan ay islaayaan rabaa wata aad baad umahadsan tahay sidee marka arrintaani xal loogu heli karaa iyadoona diidmadan ay soo socotay in ka badan 10 bilood oo markaasi hirshabelle oo madaxweyne oo ka yahay cali guudlaaw marka dadka reer hiiraan maxay tabanayaan is leedahay sidees xal lagu heli karaa horta midaa jirto hirshabelle soomaaliya dhanaa federaal wada qaadatay hirshabelle ha laga guuro la dhihi maayo waa habeenkii xalay tagay hirshabelle waa state jira wuuna shaqeynaa madaxweyne uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen uu leeyahay dabcan weli golo wasiire lama soo dhisin madaxweynihiina lama caleema saaran waxa kale oo la iskaga imaanaa waxaa la isku haystaa waxaa waaye caasimadii iyo shalay qoladii madaxweyne ku-xigeenka haysatay golihii wasiirada ugu muhiimsanaa haysatay iyo caasimadii in hiiraan loo wareejiyo laakiin waxaa ka horeeya aan wada hadalno waa aan heshiino reer hiiraan waxay diidan yihiin aan wada hadalno dagaal aan loo jeedin waa ku jiraan dabcan nimankan siyaasiyiinta oo tegay 3 isbuuc waxay u joogeen hiiraan ay u joogeen aan wada hadalno kaalay aan isku imaano go-aan aan qaadano ama aan wada diidno ama aan wada yeelno bal horta aan wada hadalno sideedana soomaali waxay tidhahdaa qoom hoggaan xun iyo guri ama qoys hooyo xun midna ma tanaadaan dhaqanka xawaadle waxaa la rabaa inay hal mowqif yeeshaan hal go-aan yeeshaan waxaana horumar lagu gaaraa ama cadkaada aad ku heli kartaa inay miiska wada hadalka yimaadaan laakiin haddaysan miiska wada hadalka imaaneyn qof walbana idaacad ay taagan tahay ay kala hadlaayaan halkaasna ay wada taagan yihiin si ay wax ku yimaadaan ama xaqii lagu raadiy lamaha wafdiga meesha jooga qaarkood weli aanan soo tegin iyo dhaqanka iyo golaha kacdoonka iyo ogaaska dhammaantood waxaa qurux badan inay intay meel isugu yimaadaan ay wada hadlaan yidhahdaan maxaa noo dana maxaa naga maqan ee isla helaan ay kala helaan markaas waa duuli karaan maxamed aad u mahadsan tahay siyaasadda meeshaasi aad baad isha ugu haysaa haddii dhanka kale aynu eegno khilaafkan hirshabelle guud ahaanba ragaadiyey xilli doorasho ayuu wadanka ku jiraa beledweyne waxay ka mid tahay goobaha markaasi la iclaamiyey inay doorashada ka dhaceyso haddii magaalada xilligan ciidamada markaasi gadoodsan ay la wareegayaan ammaanka mararka qaar faraha uu ka baxayo ma laga yaabaa in doorashadii lagu qaban lahaa halkaasi go-aan laga gaaro sababna ay u noqdaan dadkaasi markaasi in doorashada meel kale lagu qabto ma dhici karto doorashada hiiraan waa lagu qabanaa oo beledweyne waa lagu qabanaa maamul baalkii midowga maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha shalay waxay soo saareen bayaan state kasta 2 magaalo lagu qabanaa 2 magaalo midna waa jowhar midna waa beledweyne ma laga yaabo in laga soo wareejiyo laakiin waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan reer beledweyne soona dhoweeyaan doorashada soo socota amnigeedana ay ka shaqeeyaan wanaagoodana ay ka shaqeeyaan horumarkoodana ay ka shaqeeyaan laakiin haddii sida hadda ay tahay ay sii ahaadaan qallaasona oo sii socdo waxaa laga yaabaa in buuliburta loo wareejiyo ama la yidhaahdo lama aadi karo waxaa la aadaha rag baana ka shaqeynaya siyaasiyiina raba inay wax boobaan dowladdan federaalka hadda jirto sunno ay leeyihiin aa jirto oo lagu yaqaano soomaalina ay ku taqaan inay qabaa'ilkana iska hor keenaan waxna boobaan boobitaankoodu waxay ku xiran tahay ragga hadda shalay dhisay hirshabeelladan lagu murusan yahay aan dhammaystirnayn ee qabyada ee dhiciska beledweyne hadda joogaan
waxay rabaan ay ka shaqeynayaan inay ka wareejiyaan beledweyne 25 kursi ee taalla la yiraahdo ammaan maaha beledweyne waxa ku daliila 3 isbuuc ay joogeen xildhibaanada federaalka ee beledweyne jooga 3 habeen ka hor waxa tagay rag dhisay Hirshabeelladan dhiciska qalaasaha dhacay ayaga sabab u ah wata aad oo maasan tahay taladaada ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed aad u jeedin leed maxay tahay gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay talada aan soo jeedinaa waxa weeye reer Hirshabeelle qaasatan reer Hiiraan isla hel iyo kala hel wada jir iyo midnimo ayaa wax lagu helaa Hiiraan waxay ahayd hooyadii ama gobolkii Soomaaliya oo dhan lagu soo hiran jiray hogaamiyaashii hore ee joogi jiray dabcan dadkan koonfurta dego Soomaaliya waxay ku qaybsataa 4.5 wax ku qaybsataa weligeedna waa jiri jirtay wax hadda bilowda maaha shaatiga loo gelin jiray waxaa dhacday in loo diido niman xildhibaana soo galayay dowladdii Soomaaliya 1967 iyo 69 afgooy looga diiday Muqdisho looga diiday mudug looga soo diiday hogaamiyaashii hore ee gobolka Hiiraan ka soo jeeday in beledweyne ay kuraas ka soo galeen buulaburtana ay ka soo galeen taariikh lahaayo reer Hiiraan waxa leeyahay waxa tihiin hooyadii gobolada dhexe waxa tihiin hooyadii koonfurta Soomaaliya oo dhan ha isku dayina in magac madow u soo jiidaa gobolka Hiiraan cali guudlaawo waa nin walaalkiina waa nin nala dhashay waa nin hawiya shalay anaga hogaaminaynay maantana asaa hogaaminayna waa soo korsayn doonaa aan miiska wada hadalka isugu imaano aan wax wada qaybsanno iyo aan ku cuno baasho ha ahaato walaalnimo dirisnimo ehelnimo dadka dhaliya ka dhaxaysa baashiyaan ceel dheer lagu ridin from gaalkacayo ilaa afka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo wada dhasheen reer Hiiraan waxaan leeyahay dadkiina gacmaha ku qabsada markaas ay horumar